آمنوا إلهي ددك الله الله يا وددك إيمانك لويا صونك وحال لغو فرد يالي وددك مؤمنين إلهي آمن سن آخرة آمن سن جنة آمن سن نار آمن سن ملائكة آمن سن كتابك إلهي جل وعلا يا أنبياء إلهي صدرين آمن سن ددك أسأل لغو فرد يالي مارتان بشهر رمضان إني الصومان الكاسة إلهي يا أيها الذين آمنوا كوي علي النبي الرميي كتب عليكم الصيام وحالي نقو واجب يالي الصيام مالين كيغانا بشهر رمضان إن أتصومتان بالي نقو فرد يالي إنكو كلي ما هي نبي إلهي لا يهي كما كتب على الذين من قبلكم كوي نقوه الرئيب سيدي الله فرد يالي با إنكنا لنقو فرد يالي با إلهي وأمر كان أمر إنك كلي إني قارا معها من لدن آدم عليه السلام لقى صوب الأبو إلى جوجدي لا ما أنت نقول أدوية الجوكتان وحدة مؤمنين مسلمين أدوية صومري صونك والله وضربوا إن الصومان والله واجب عليه تقوى بالله دحلا صونك لعلكم تتقون بإلهي يري لأن مركز الصومتان الواجب كإلهي نقول واجبين على مادام مركز واحد متيستين ومدنتهين إن على الله كيابي على كبقى ديالتان إيمانك يتقوى دي لحدود آيات الله نجي عمل كستو صالحة تأثير بوليه السامين بوليه صلاة إلهي مركو كهلا يسامين تدواكيلها إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صفة الصلاة اللي يقعنا ومحي قف كما ركتنا منكر كي يحمانتي صلاة أي كربتها يكد حسارتها حج كان صفة أي الله يقعنا صفة حج اللي يقعنا ومحي من حج فلم يرفض ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه من الذنوب نك حجيه النبي عليه الصلاة والسلام يا حشكي سائلتو كجرينا أي يلقوي يوحن يماركتان أنا لا إيمان حشك وحو كسو نغضاب رسولك يري يسوق الذنوب كم ميران وكأ سيدي مالنتي المها يروها المها يرلس سدوسا دنبي بقولها أي حاجة حشك لقى أقبلينا waxa uu soo noqonayaa maaragtaana isagoo dambi ka asidii ilmo yaro imika dhashay ta'thir amal kasto saalix saameyn buu leeyahay silatu rihim haduu qofku qaraabadiisa xiriiriyana iyaduna saameyn bay leedahay man habba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi atharihi falyasil rahimahu rasuulku alayhi salatu wassalam qofka jecel in arsaaqada loo wasiiciyo umrigiisana loo dheereeyo loo barakeeyo qofkii rabow رحمك حريري برسولك عليه الصلاة والسلام هذا دون إن أرزاق هذا اللقو واسعيو عمرك أغانا اللقو بركايو وأنا القرابة هذا حريري ساعة وحاك له تأثير عجيب له الصدقة السر بنبي صدقة السر تطفئ غضب الرب صدقة السر لو لم بحيل لسر يستع عرض إلهي باختصاب النبي عليه الصلاة والسلام عمل كستو صالحة قفك بين آدك النولوشيس التأثير بكرهبا كذلك ولا ليال تأثير تصون كليه ومحي ولعلكم تتقون الشهر رمضان ضدك مؤمنينتو هذا إلهي كبقان وتقوى أي زياديان وعمل كصالحة أي زياديان وبالشهر رمضان حبنه وقي جوارح دودا سيدي أول بأي حمانته وقي إلى لينيين أي بالشهر رمضان إلهي وقبقان وبقدنت الله أي سي زياديان حمانته إسكر دوران صونك waxay ka dhaxli doonaan taqwa bay ka dhaxli doonaan soonka maxaan ka soomanahay soonka waxaan ka soomanahay bisha Ramadaan waxa weeyaan maalinkeega wixii Ilaahay noo xalaaleeyay baan ka soomanay bihi iyo baadkii iyo zawjadaadi xalaasha ahayd ee maharku ku xidhay ayaa lagu leeyahay maalintii ha u dhawaana ka sooma qofka bisha Ramadaan baa la yiri amarka Ilaahay jalla wa ala qaata waa maxay amarkaasi ama muuminka wixii muharramaada Ilaahay ka xarimay nolosha kale oo dhan baa la rabaa qofka muuminka inuu ka soomo laakiin bisha Ramadaan waa maxay maalinkeega waxa lagu leeyahay biyaha cabin cuntadii xalaasha ahayd ha cunin xaaskaagii xalaasha ahayd ha la galmo baa laga yidhi ha u dhawaan haddii marka amarka Ilaahay jalla wa ala uu qofku qaato oo bisha Ramadaan is ilaaliyo waxa Ilaahay ku arsaaqaya oo bisha Ramadaan ka dhaxli doona in koob iyo tobanka bilood ee kale ama noloshiisa inta ka hadhayna waxa uu soonku raad ku reebaya marka wax la taqwad sida salaada waanaka ka soo hadalay ay qofka xumaantiya munkarka uga dhaxreebayso oo xajkuna sabab u noqonayo qofka dambigiisa in laga dhaafo silatu rahimkuna oo sabab u noqonayo qofka arsaaqada in loo waasiciyo cimrigana loo barakeeyo haduu qofku bisha Ramadaan maalinkeegana
ku dadaalo maaragtaan siyaam an-nahar hadduu ku dadaalo waxyaabaha mubaaxaadka ilaahay ku banaaneeyay ay ka mid tahay cunnadu ka mid tahay acabku ka mid tahay zawjadaada xalaasha haddaad ka dhowrsoonaatood ka joogsato waxa ilaahay kugu arsaaqayaa markaa bacda siyaam bacda hada shahr almubaarak wuxuu ilaahay kuu furayaa wixii kale muxaramaada ilaahay kaa xarimay oo dhan inaad ka dheeraataa ilaahay kugu ilhaaminaya waa taqwad baa laga dhaxlaa soonka laga yaaba dad badan oo muslimiina bisha Ramadaan inay xubnahooda xumaanta ka ilaaliyaan oo xanta carabka ka ilaaliyaan oo ishooda daymashada xun ka ilaaliyaan oo laqwiga iska ilaaliyaan oo ficilka xun iska ilaaliyaan laakiin Ramadaan markuu baxaan waxa laga yaabaa inayna maaragtaan sidee bisha Ramadaan isku ilaalinayeen ay hadeetooda isku ilaaliyeen علامة القبول وحا علماء يرادين علامة قبول الحسنة بعد الحسنة والإمام ابن القيم رحمه الله خير كهوريت سميس إن لغا أقبل وحا لغو قرتا خير كلو كوين بإلهي مركز خير كبحض وكفرا سوانك وحا لغا دحلا نلوشين إنو كره بيسبدل تربية وحا لغا سومايين بادية بيكالي ما هنا هذا القحوم للربائين لغا سومو markhaatiga beenta ee dadku ay furayaan in laga soomaa la rabaa laqwiga in laga soomaa la rabaa man lam yadac qawla az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu ninka aanan ka tagin buu nabigu yiri hadalka xun ee maala yacniga cayda iyo kaftanka iyo xanta iyo maragtaana iyo markhaati beenaalaha qofka aanan ka tagin iyo amalka sharcigu inkiray qofka aanan ka tagin ilaahay dan kama buu nabigu yiri inuu haraad iyo gaajo qofkaas isku dilo sida biyaha uga soontay baadka uga soontay ayaa la rabaa ishaadu inay xumaanta ka soonto oo dhagtaadu laqwiga ka soonto oo maaragtaana calooshaadu xaaraanta ka soonto oo gacantaadu xaaraanta ka soonto oo lugtaadu meesha xun ay maraysa ka soonto oo waqtigaagu meesha xun ku baxayo inaad ka soontaa laga rabaa fursad bishan waa bil barakaysan waa sir soonku waa sir ilaahay adoonka ka dhaxeeya abaalkiisana ilaahay waa inoo qariyay halka acmaasha kale saalihaadka thawaabkooga la inoo sheegay salaada oo kale man salla al-bardayn dakhala al-janna rasuulku qofka labada qaqabuutu kala jannadu galay hajj al-mabrur laysa lahu jazaa illa al-janna nabigu hajjiga hajjiye hajkiisa ku soo baar falay abal gudka lama labu nabigu illa janna illa siya mooyaan man qara 10 aayatin surata al-ikhlas hatta yaqtimaha bana Allahu lahu qasran fil janna toban jeer ninka akhriya suurada ikhlaaska buu nabigu yiri qasri ba ilaahay jannada uga dhisaa man salla lillahi 12 rak'ata 12 rak'ata tatawwu'an ghayra al-farida bana Allahu lahu baytan fil janna labiya tabarraka sunna qofka maalinkii tukada ilaahay aqalbu jannada uga dhisaa labada subaxa ka horeysa iyo afar duhurka ka horeysa iyo laba duhur ka dambaysa iyo labada maghrib ka dambaysa iyo labada cishaa'iga ka dambaysa buu rasuulku yiri 12 ka rak'ay sunna qofka maalintii tukada ilaahay aqalbu jannada uga dhisaa man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baytan fil janna ninka masaajid ilaahay dartii u dhisay isagan ilaahay aqalbu jannada uga dhisaa ana wa kafilul yatiim ka hatayn fil janna ilma agoona ninka soo qaatay ee kafaalo qaaday tarbiyadiisa wanaajiyayna aniga ninkaas jannada sadaasan isku nahay rasuulku yiri man qala subhanallahi wa bihamdihi ghurisat lahu nakhlatun fil janna subhanallahi wa bihamdihi qofka mar yiraahda geeti mara jannada looga beeraa masalaka tariiqan yaltamisu fihi